السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسور وهذا داود يا البرنامج كينا ما أنت قد بدأنا نكون هنا وحاكم ذا تقال ذي توبي كسعودي ونعيا بدن سامين كوي شيء ما أنت وحين وربحين دير كدر يستاق دون حالها أي كسويهين كنيسة ذا هي وياش ديمها كريستن كم قومية أحمر ذا يتكريجا هذا وسيا واحد بدن وجوه حالة دمشق كجرته ayaa waxaan soo koobi doonaa warbixin iyo xaalado ka dhacay toddobaadadii la soo dhaafay ilaa maalmahan gobolkaas. Haddaba kaniisadaha oo kala dhintay iyo baadiriyaal hubka qaatay si ay dagaalka qayb uga noqdaan iyo xaaladda kaniisadaha oo faraha ka baxday ayaan halkan kusoo bandhigaynaa. Dagaalada ka socda Itoobiya waxay kala dileen oo qolada xun kala dhaxdhigeen baadiriyaasha aqoomiyadaha Axmaarada iyo Tireega ama ilmaha Abasinia. magaalada Lalibela kaniisad ku taallay oo la yiraahdo Wiqira Beta Kristana ayaa ah goobta kaliya ee lagu kaydiyo qalabka iyo buugaagta laga barto diinta Kiristaanka ee guud ahaan kaniisadaha Itoobiya. Haddaba baadirigii xoghaynta uu ahaa kaniisada Wiqira Beta Kristana ayaa qoriga qaatay isagoo sheegay inuu dagaalka kala hortagi doono xoogagga Tigreega. baadirigan ayaa safka hore ee dagaalka ka soo muuqday maalmo kadib isagoo hubeysan. dagaalada xunxun ee ka socda Itoobiya ayaa kala qaybsan saraan xoogan ku keenay maamulka kaniisadaha Ortodokska ee dalka Itoobiya. baadiri lagu magacaabo Abba Gabra Mariam ayaa laanta BBC Axmaari u sheegay in diyaar uu yahay geeri sidoo kalena uu ka dhaxbaxay kaniisadaha uu dhex fadhiyay muddada dheer ee uu macalinka ka ahaa. Gabra Mariam ayaa la arkay isagoo ciidan qoranaya safka horena kaga jira goobaha lagu qoro ciidamada dagaalada loo qorayo. dhanka kale sargaal ka mid ah ciidamada Tigreega ayaa yiri Abiy Ahmed wuxuu ugu talagalay inaan layno culimada Kiristaanka ah waayo shacabka ayuu yiri qoryaha qaata qorshihiin waa inaan qaysaska iyo madaxdiimaha layno marka ay dagaal nagu soo qaadaan. haddii aan gumaadno wadanku wuu burburaya kadibna xaaladu faraha ay ka baxaysaa waxaana tirtirmaya culimada faafisa diinta Kiristaanka waa sidoo uu hadalka u dhigay. goobahan gaalada muhiimka u ah ayaa la dhisay qarnigii 17aad ilaa iyo qarnigii 13aad. kaniisada Wiqira ee ku taala Lalibela oo laga sameeyay dhagax hal nooca oo la qoray ayaa waxay afka hore kaga jirtaa goobaha taariikhiga ah heer caalami ku yaala. kaniisada Wiqira oo loo yaqaan Lalibela ayaa waxaa ka shaqeeya shaqaale ama culimo tiradoodu gaarayso 700 oo qof kuwaas oo intay TDF qabsatay magaalada Lalibela dhibaatooyin badan kala kulmay. shaqaalahan oo qaadan jiray mushahar joogto ayaa hadda markay mushahar la'aan noqdeen ka kala cararay sida uu sheegay macallin baraka jaamacadda Gondar Atomilia Masterat iyagoo ku kala biiray kooxaha dagaalada u dhaxeeyaan. sidoo kale wuxuu yiri kaniisadaha ku yaala deegaanka Axmaarada oo dhan culaadu way saameysay oo kuwa badan ayaa la biliqaystay. waxaad moodaa dawladdu inaysan dan ka lahayn ilaalinta amniga goobaha diinta kaniisadaha ayuu hadalkiisa ku soo koobay. sidoo kale kaniisad la dhisay oo la yiraahdo Jajo Madina Alambeta Kristal waxaa burburiyay duqeymo hubka culus ah oo la isu adeegsaday. sidoo kale wuxuu burbur soo gaadhay kaniisadaha kale ah Jalla Taklamay Manot Wallahi waxaana lagu dhaxarkay firirka rasaasta iyo maaraha sida ay qortay warbaahinta Associated Press. shacabka ku nool goobaha ay dagaaladu ka socdaan ayaa sheegay in dadkii dagaalka ku dhintay in tiro badan oo ka mid ah ay ahaayeen wadaadada ama culimada kaniisadaha. maamulka ugu sarreeya ee kaniisadaha dalka Itoobiya ayaa sheegay in shacabka labada dhinac ee islaynaya Axmaarada iyo Tigreega ay 43% yihiin culimadii ka shaqeynaysay diinta Kiristaanka. 43% ayay shaqadoodu ahayd inay guud ahaan shacabka Itoobiya diinta Kiristaanka gaar ahaan qowmiyadaha Axmaarada iyo Tigreega gaarsiiyaan. sidaas daraadeed waxay hakin iyo caqabad weyn ku timid shaqada diinta aan qiimaha lahayn sida ay sheegeen. sidoo kale wadaadaha kaniisadaha deegaanka Tigreega ayaa sheegay in 8 bilood ay ciidanka Eritrea iyo kuwa huwanta Itoobiya ay maamulayeen deegaanka Tigray ay laayeen in ka badan 320 wadaad oo kuwa ka shaqeeya kaniisadaha. waxayna burbur iyo khasaare u geysteen 12 kaniisadood. waxay sidoo kale sheegeen xitaa inay dhibaato u geysteen
muslimiin ku noolaa deegaanka Tigray iyo hal masaajid. shacabka deegaanka Tigray ayaa waxay muslimiintu ka yihiin boqolkiiba 4 oo kaliya, halka 96 ay yihiin Kristaan. sidoo kale kaniisad ku taala waqooyiga Ameerika baadiri xubin ka ah oo haysta dhalashada dalka Canada laguna magacaabo Professor Getachew Assefa ayaa BBC u sheegay dagaalka uu Abiy wado ee uu isleeyahay shacabka Tigray ha lagu jilba joojiyo si ay siyaas jilbaha u qabsadaan, balse diinta Kiristaanka ayaa dagaalka lagu soo qaaday waa sida uu yiri. intaas waxaa dheer buuraha deegaanka Tigray buur ka mid ah oo 24 mitir ah dusheeda kaniisad laga dhisay qarnigii 6aad laguna magacaabo Dabro Gada oo taariikh fog leh oo culunta iyo alaabta taariikhiga ah ee taalay waxaa boobay ama balaqaystay ciidanka dalka Eritrea. goobtan ama kaniisadan ee Dabra Gadama waxaa ku dhintay taariikhdu markay ahayd 2 bishii 9 1540 boqor Asen Nabe Dinge lagu magacaabo. waa boqorkii Imaam Axmed Gurey la dagaalamayay isagoo kaga dhuumanayay ama iskaga qarnayay Axmed Gurey buurtaas ayuu ku dhintay. halkaas ayaana lagu aasay. kadib waxaa xilkii boqornimo la wareegay wiilkiisii. shacabka qurba joogta ah ee Axmaarada iyo Tigrayga ayaa u kala fogaaday iyagoo sheegay inaysan hadda kadib isku meel ku wada tukan doonin, oo sida dalalka Canada iyo Australia iyo Ameerika kaniisado kala gaar ah ay Axmaarada iyo Tigrayga kala aadayaan isna arki karin. Abiy Ahmed oo haysta diinta Bendeega ayaa waxa uu khilaaf xoogan kala dhaxdhigay shacabka haysta diinta Ortodokska ama waa ilmo Abasiiniye. isku soo wada duuba wuxuu khilaaf ay adag tahay in xal dambe loo helo soo kala dhaxgalay Kiristaanka dalka Itoobiya. haddaba halka aad nagala socotaan waa Galbeed 24.